ورحمة الله وبركاته أصحابتا دمان وإذا وذا السلامي يرول بادوني في جوكتان ومركل يا معلم محمد أو يسكسو دوادا أنفع جلال البليس سبسكرايب لايك يشير انت بوعابية دو إلهي كران مخلصي ونسو كبعو runtii hadda kanaalkayga waa ibtidaa'i muddo dhowr maalmood bis un ayaan ka shaqeynayaa haddana waa 100 iyo something oo subscribe aan marayaa marka anoona wax fiidiyoyaal badan aan soo gelinay marka waxaan rabaa inaan u diyaar garoobo hadduu eeba karaan noqdo inaan studio abuuro hadafkayga keliya waxa waaye inaan walaalahay muslimiinta ah u anfaco ama isdhihi karo waxyaalaha manaafacaad iyo wanaag u leeyihiin adduunya aakhiro إن أوصو قد بيد إلهي كرر إن شاء الله تعالى مركا لوجه الله الكريم ولبا أيضا أهدو إلهي كرر إن شاء الله محايلة أنا مرة اليوتيوب كنا لعك هلو ما نكو حران روبا جوجل أدسنس كي وحي لميتك هو مبر روبا العك لكن وحن دونا بس إنا ميزانك حسناتك إلهي سبحانه وتعالى قدره حيالي وحيالها qofka markuu dhinto u sii soconaya sadaqa jaariya noqonaysa waxa waaye cilmi oo dad baro oo qofka cilmigaas cilmi naafic oo dad baro wax tar u leh marka insha Allah ta'ala waa maasantiin inta si ay darajaysan kulligiina isgaarsiga aduu Ilaahay karaan noqdo waxyaalaha aadka wax u tara adduunyo aakhiro ku anfaca ayaan insha Allah idin soo gudbin doonaa hawshaasana isku hol runtii waa hawl culus qofkii yaqaanay وهول علوس runtii waxay u baahan tahay inaad caziimo iyo go'aan adag ay yeelato insha Allah marka insha Allah aan gudo galno barnaamijkeena maanta waxa ku saabsanaa doona insha Allah application aad u wanaagsan runtii oo kamid ah applicationada qofka adduunyo aakhiro wax uu tari doono application oo ka hadlayo maxaa lahaay manaafacaad fiican leh waa application quraanka kariimka waa idin tusi doona haddii Ilaahay kala noqdo inta badan mobilada hadda quraano kale application quraan waa lagu shubaa qaar waa kuwa maxaa la dhahay aad u fiican oo maxaa la dhahay features badan leh wax badan qabanaya qaarna waa kuwa iska yaro iska dhexdhexaad ah marka kuwa ugu fiican oo qofkana wax ku baran karo cilmi badan ka faa'iidayo إلهي سبحانه وتعالى وإيمان كارو كسحسوسنا أتكو في عنو آخرتي سو كدالين أي رامانت إلى إذن لبداق إن شاء الله كسر دوالا وانا إذن تصدنا ما شاء الله مركب برنامج إذن شيء يا أصحابي وكنا القرآن مع التفسير بدون إنترنت القرآن تاهي فيرشن كيسو يا هاي فايف عفوا أنا أراكنا مركا نوافرنا بإذن الله الكريم اللي هو شاشته إشارة هاي ninkii rabo stoorka magacaas uu ku qorayaa waa uu soo degsanayaa marka Ilaahay karaan noqon insha Allah abara sugeena ilaa oo ka stoorka rasmi marka asxaabay barnaamijka waa kana quraanka kariimka ah kulay meeshaan wuxuu kor waxa ku qoran dhowr waxyaalood midalan meesha calaamadan meeshaan ku qoran saddexdan habo ka ku dhufato waxa ku soo baxay figure scan waa waxyaalaha quraanka aad application kan uu ku wanaagsan yahay waxa ugu horeeyo fadlu qiraa'atul qur'aan ahadiis iyo ugu booriyayso ina qur'aanka maxaa lahaay akhriso iyo wanaaga uu leeyahay maxaa lahaay xadiisku waxa uu horeeyo nabi kaleey salaatu wasalaam uu leeyahay iqra'ul qur'aana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi qur'aanka akhriya maalinta yawm al-qiyamah wuxuu idin imaana asagoo idin shafaaca qaadayo ama asxaabtiisa u shafaaca qaadayo iyo xadiiska kale Uthman ibn Affan ujeedid khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu midkiin waxa uu khayr badan qur'aanka bartay hadana dadka bara iyo xadiis kale oo ka tilmaamaysa yani qur'aanka akhrintiisa iyo wanaaga uu leeyahay iyo xadiis kale oo tiro badan marka insha Allah ta'ala waa qaybtaas qaybta kale labaad ee xigtaan aragno qaybta labaad macaani kalimaad waa يعني قرآن كلمات كيسو كجرا معاني ذا أي كالكوين ودن أيو سفي عن كل شيء مركا أنت على قارن إن قيبته تفسير كا معاني الكلمات الروا ما كان مثلا هذا صوفير ماشان
يوم الدين معناها هو يوم الجزاء. كلمة الدين يعني الجزاء المفسرة. اهدنا الصراط المستقيم يعني الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه المغضوب عليهم يهود القضاء الضالين. marka ninka rabo quraanka maxaa la dhahay macaanidiisa kalimaadka ku jira aayad مثلا aayadaha kamid oo kale kalimaadka ku jira ada u baahan afwan koola soo galay marka waa ka quraanka waa afwan waxa kale qaybta kale ku xigta waxay noqonaysaa insha Allah tafsiirka quraanka caadiga ah معاني الكلمات iyo tafsiirka runtii farqi u dhaxeeya ninkii garanaya مثلا aayadahan oo kale hada aasan oo kale wa idin ajaynakum min ali fir'auna yasumunakum reer bani israa'iil la hadla